sideedii bishan ay ahayd markii ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland ay awood ciidan kula wareegeen 70 kilomitir oo kamid ah xuduudda ay xaqa u leedahay Jamhuuriyadda Somaliland ee aynu la wadaagno wadankaasi Soomaaliya. ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland oo fadhigoodii hore ahaa deegaanka Gambadha oo 30 kilomitir u jira magaalada Laascaanood ayaa haatan ku sugan deegaanka Tukaraq oo 70 kilomitir u jirta magaalada Laascaanood. ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland ee halkaasi ku sugan waxa ay si nabadgelyo ah oo wanaagsan ay ula dhaqmeen shacbigooda halkaasi ku dhaqan. sidoo kale waxay tilmaameen weerar kasta oo ku yimaada inay u fududahay inay difaacaan walibana ay gaaraan dhammaanba xuduudaha Somaliland. sidaasi daawadayaal adkaysaan ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland iyaga oo fulinaya waajibaadka dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland qodobkiisa 123 ee waajibinaya in ciidamada qaranku ay u xil saaran yihiin sugidda xuduudaha dalka ayaa waxa fadhiisimada hore ee deegaanka Tukaraq oo 70 kilomitir u jira magaalada Laascaanood socdaal nabad ah ku tagay wafdi ballaaran oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seelici waxaana ku weelinayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiirka biyaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo barasaabka gobolka Sool iyo saraakiil kale iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland. waxaana halkaasi hore ugu sugnaa oo joogay taliyaha ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland Sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Tani iyo saraakiisha qaybaha kala duwan ee ciidamada jiida hore iyo guud ahaanba qarankan Jamhuuriyadda Somaliland. dareenka wadaniyadeed iyo kan difaacidda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waa mid ay ka siman yihiin saraakiil iyo ciidan dhammaantoodba. madaxweyne ku-xigeen ku soo dhow cutub ka tirsan ciidamada qalabka sida ee jiida hore Jamhuuriyadda Somaliland oo salaantaada iyo soo dhaweyntaada diyaar u ah. maanta bishu tahay 21 bishii koobaad waxaan ku soo dhaweynaa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiirada la socda jiida hore ee meesha la yiraahdo Tukaraq 7 kilomitir goob ka horeysa ciidanka qaranka uu halkan digay oo qabsaday 7 bishan muxuu ahaa bisha koobaad 8 halkaas oo aan iska caabin badan la kulmin. aniga oo ah gaashaanle sare Yuusuf Aadan Nuur Yuusuf Marduuf madaxa hoggaanka madaafiicda goobta ahna imiga taliyaha jiidani halkan joogno waxaan leeyahay ciidanka qaranka ee jiidan ku sugan waxa uu harsan xuduudii 70 kilomitir ayaa noo harsan xadkii Somaliland ay lahayd. halkan aanu joognaa waa meel ka horeysa Tukaraq 7 kilomitir oo u jeeda dhinaca xuduudka Jamhuuriyadda Somaliland ee bariga Somaliland taas oo waajib ku ah ciidanka qaranku inuu qabsado hawshiisa hogaaminna oo noogu ahaa iyo taliyaha guud ee ciidanka qaranka Sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Tani madaxweyne ku-xigeen waxaanu ku sheegaynaa annagu waxaanu qabsanay waajib aanu lahayn imikana waxaanu diyaar u nahay waajibkayaga wixii ka hadhay ee xuduudaha sugistiisa inaanu dhammaystirno. madaxweyne waxaan tusaale ka yar kaad siinayaa jiida hore ee ciidanka qaranku ku jiro halkan oo ah buurta la yiraahdo laba madaxley deegaankoodina uu yahay deegaankooda horna barkeed kan ha maantana ay u jiraan 6 kilomitir annagana waxa dhiman ilaa xuduudku intuu naga horeeyo waajibaadkii aanu qaranka u haynay ma dhammaystirey uu dhimay rati laba la siiyay baa la yidhi dhalkufaan ma leh halkaanu nimid inaanu ku faadna iyo in lagu gadangado midna maahe weli wuu dhiman yahay waajibaadka yagi. salaan kadib mudane madaxweyne halkan waxa jooga ciidankii qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo gudanaya waajibkiisa qaran
halkan naga soo horjeedana waxaa jooga ciidamo badan oo lagu soo ururiyey kulley anagu wax dhiba labada dhanba dhib lama rabno kuwaasna waa dadkayagii kuwana waa dadkayagii wax dhiba lama rabno laakiinse waxa weeyaan waxa la isla maandhaafiyan waxa weeyaan warxadkaygii baan tegayaa iyo tegi maysid iminka waajibkeena koowaad waxa weeyaan halkan inaan joogno walaalihiinna waxaan leenahay annagu halkaasaan joognaa wixiina nabadan ku dhammaysanna ayaan leenahay waayo dhiigga soomaaliyeed midna ma rabno xaggan iyo xaggaa midnaba laakiin waxa weeye inaan nabad ku wada noolaano oon jaar wanaagsan noqonno oo wixii khilaafaadana nabad lagu xalilo ayaa waan jeclahay sida saraakiisha iyo taliyuhu ugu dhawaajiyeen waxaanu joognaa jiiddii ugu horeysay ee ciidamada xoogga qaranka Somaliland oo u jirta magaalada Tukaraq 7 kilomitir xigtana dhinaca xuduudda sidii laga dhawaajiyay wali xuduudeena waxaan u jiraa in ka badan 70 kilomitir 70 kilomitir in xuduudeena u jiro waxaanu uga joognaa oo hadda uga maqannahay xeerin nabadgelyo haba hadalka sii dheerayn maayo aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya ciidamada khaasatan xasiloonida iyo deegaankaanu soo maray oo meel kasta calanka lala taagan yahay oo dadku macnaha banaanka taagan yahay oo u diyaar yahay macnaha ay ka muuqato kasbashada iyo soo dhaweynta iyo bogaadinta ay u oomanaayeen in qarankoodu ku soo fido oo deegaanka maamulku soo gaaro hadalka inta nuxurkiisa waxay ka dambeynayaan madaxweyne ku xigeenka aan ku soo dhaweynay Cabdiraxmaan Kusudhow ilaahay baa mahadle maanta halkan ina soo gaarsiiyey marka hore mahadda ilaahay ka soko waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka Somaliland oo runtii hawl adag ku jira waajib dastuuriyan halkan maanta u jooga dhulkii Somaliland oo xuduud ka dhaweyn ana jooga maanta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii hawsha adag ee qabteen ama ay u joogaan mar walba ay heeganka ugu yihiin difaaca qaranka waxaan maanta idinku nimidnay halka u soo joogsanay colaad maaha waxaan u nimidnay idin mahadnaqno oo idin baarigno waxa kale oo nimidnay inaad idinku waarino ama idinku boorino inaad ummadda aad mar walba aad la joogtaan oo mar walba aan ogahay akhlaaqada iyo dhaqanka ciidanka Soomaaliland maanta muddada uu jiray sida uu soo karaameeyo shacabkiisa iyo dadkiisa u karaameeyo inaad dadka dhowrtaan oo dhaqdaan oo caawisaan waajibkiina aad idinku fushanaya wax daandaasi idinku yimaado mooyaane inaad maartay saala sheegay xuduudda inta inoo ka dhiman dalkeena waxaynu uga joognaa inagoo dhowrayna in dhibaato halka ka sii dhacdo axmed jaamac faarax iyo cabdicasiis maxamed maydhax telefishinka qaranka ee jamhuuriyadda Somaliland jiidda hore ee deegaanka Tukaraq.